Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan nooga hadli doonaa sababta loo bedelay magaca Facebook. Waa maxay sababta Mark Zuckerberg uu bedelay magaca Facebook uuna bedelay magaca Meta? Waa maxay magaca Meta? Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Mark Zuckerberg ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu bedelay magacii Facebook. Sababta uu bedelay ayaa waxay tahay fadeexo soo wajahday Facebook asbuucyadii iyo bilooyinkii la soo dhaafay. Meta ayuu u bedelay magaca cusub ee Facebook. Taasi waxay la micno tahay in hadda wixii ka bilowda xitaa Facebook uu hoos tagi doono shirkadda Meta. Awal Facebook ayaa waxaa hoos tagi jiray Messenger-ka, WhatsApp-ka iyo Instagram-ka. Laakiin hadda wixii ka bilowda Facebook, Instagram, Messenger, kulli dhamaantood iyo WhatsApp-ka waxay hoos tagi doonaan shirkadda cusub ee Mark Zuckerberg ee Meta. Mark Zuckerberg ayaa wuxuu sheegay in uu soo saari doono internet cusub iyo waxyaalo cusub oo caalamka ka waali doono kana yaabi doono caalamka. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta. Waa kanaal cusub oo aan ugu talagalay muuqaalo gaagaaban oo YouTube Shorts ah. Mahadsanid ku soo biir.